qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin dowladda Indonesia ayaa BBC-da u sheegtay inay dhisayso xarun cusub oo digniin ka bixisa tsunami-da sanadka soo socda. Tirada dadkii ku dhintay tsunami-dii Sabtidii ayaa gaartay 429 qof. kumanaan soo galootiga ee bartamaha America ayaa Christmas-ka ku qaadanaya maanta jidadka mid ka mid ah magaalooyinka ugu halista badan Mexico. warbixino ayaanu idinkaga haynaa qodobadaasi sidoo kale iyadoo sanadkan 2018 uu sii dhamaanayo waxaanu eegi doonaa warbixinadii ugu xiisaha badnaa ee aynu sanadkan sii deena waxaana ka mid ah Ilhaan Cumar oo noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee loo doorto aqalka Congress-ka Mareykanka. magaalada tan London tiradii ugu badnayd ee dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa mindiyo lagu laayay sanadkan. kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada. halkani waa London, barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka. waxaanu ku bilaabaynaa dowladda waddanka Indonesia waxa ay ku dhawaaqday in ay markaasi dhisi doonto xarun cusub oo digniin oo horudhac u ah tsunami-da iyadoo dadkii ku dhintay dhulgariirkii Sabtidii ay kor u dhaaftay 429 qof. roobab mahiigana oo ka dhacay bartamaha Indonesia ayaa sababay in hakad la geliyo dadaalada gargaarka. ku dhawaad 1500 oo qof ayaa dhaawacmay, dad badan waxa la la'yahay sida la sheegayo in ay halkaasi ay wali ay bad qabaan. dhulgariirka ayaa waxa uu burbur weyn u gaarsiiyay xeebaha koonfurta Sumatra iyo waqooyiga Java, waxaana muuqaaladani ay yihiin oo ay muujinayaan xeebaha waddankaasi oo wali laga raadinayo in ay jiraan dad markaasi ku badbaaday amaba ka samata baxay dhulgariirkaasi. shaqaalaha samata bixinta wali waxay baadi goobayaan in ay jiri karaan dadkaasi ka badbaaday xaaladan adag. waxaan maqalnay in xoogaa ka hor ay kooxdeena gaareen bulsho gaaraysa ilaa 800 oo qof. ma ogin inay halkaas wada deganaayeen ama ay ku jiraan dad dhankooda u soo qaxay oo go'doomay markii tsunami-ga uu dhacay. si kastaba dadkan maysan helin gargaar oo dhan taniyo markuu dhulgariirka dhacay. waxyaabaha asaasiga ah ee dadka ay u baahan yihiin marka musiibadan ay dhacdo sida darbaal iyo bustayaal, sababtoo ah waa qabow habeenkii, biyo nadiif ah oo ay cabaan ayayna u baahan yihiin. inkastoo jidadku ay ku go'een burburka guryaha iyo geedaha, haddana waxaa jirta in dadka gurmadka sameynaya ay markaasi ay gaarayaan dhibaatooyinka halkaasi ka jirta oo ay sheegayaan in deegaano fogfog ay wali ka raadinayaan masiibada ay ku dhacday dad halkaasi ka samata baxay. waxaana ay sheegayaan in ay tahay mid ka xun sidii markii hore la moodayay. waxaana jirta in xarunta gobolka Banten ay tahay mid xudun u ah howlaha gurmadka. meydadka la helo ayaa la keenaa si loo garto. sidoo kale waxaa la keenay caruur fara badan oo la sheegayo in waalidkood ay kala lumeen. laakiin hay-aduhu waxay sheegayaan in biyaha iyo daawada gargaarkaba ay sii dhamaanayaan halkaasi. kumanaan qof oo soo qaxay ayaa la dejiyay xeryo ay sameeyeen dowladda iyo hay-adaha, waxaana looga digayaa in aysan halis isgelin oo aysan dib ugu noqon guryahoodii. wariyaha BBC-da Samir Hashimi ayaa ku sugan galbeedka Java. waxaa jirto digniin ilaa Arbacada oo dowladda ay soo saartay. waxaa laga digayaa tsunami, waxaana loo sheegay dadka ku sugan xeebaha inay halkaasi ka fogaadaan. badankoodana waa ay ka soo tageen goobahaas. qaarkood waxa ay ku sugan yihiin xeryo ay sameeyeen dowladda iyo hay-adaha maxalliga. laakiin waxaa jiro kuwo badan oo gudaha u sii galay, waxayna asxaabtooda iyo qaraabadooda kula sugan yihiin meelo badqab leh, wayna isku dhex jiraan. ma ahan in dhammaantood ay hal meel ku wada sugan yihiin. waxa ay dowladda isku dayayso ayaa ah in la xaqiijiyo in dad badan la geeyo goobaha kala duwan ee gurmadka si loo caawiyo loona daaweeyo haddii xanuuno ay qabaan. waxaa jiro warar soo dhacaya oo sheegaya in carruur badan iyo waalidkooda ay kala lumeen, waxaana soo qaaday booliska. waxaa la geeyey saldhigyada booliska si waalidkooda loogu raadiyo. kuwa badanna waa la la'yahay weli kadib dhulgariirkii tsunami ee Sabtidii dhacay. haddaba dhulgariirkan tsunami-da ee dhimashada badan sababa waxaa la aaminsan yahay inuu ka dhashay fulkaanada la yidhaahdo Anacarakatu. waxaana goobtani ay tahay baa la yidhi meesha ay ka dhacaan fulkaanaha ugu xun ee abid dhacay bishii Agoosto 1883 in ka badan 30,000 oo qof
ayaa ku dhintay halkaasi. dalka Indonesia waxaa ka dhaca boqolkiiba 13 guud ahaan volkaanooyinka dunida oo dhan ka dhaca, waxaana ku xiga dhulgariiro. bishii September ee isla sanadkan 2,000 oo qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoog badan oo daba socday tsunami oo ku dhuftay xeebaha magaalada Palu. sidoo kale ilaa 13 dal ayay si xun u saameysay dhulgariirkii tsunamidii ee December 2004 taasi oo keentay in xeebaha badweynta India ay ku dhintaan 228,000 oo qof. markana aynu eegno wadanka Mexico. horaantii sanadkan ama bishan waxaaynu wadanka Mexico ay ogolaatay oo ku soo warranay qorshe ah in dadka magangeliyo doonaya ay Mareykanka ay joogi karaan oo Mexico inta codsigooda markaasi laga shaqeynayo, iyadoo xaalad xun halkaasi ay ku jirto oo ay ku sugan yihiin magaalada la yiraahdo Tijuana. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. qoyska Samuel waxay filayeen inay nolol ka samaystaan Mareykanka, ma ahayn inay hadda ku noolaadaan teendha Mexico ku taala. qaynuunka cusub waa in ay Mexico joogaan ay ku noolaadaan hoy aan rasmi ahayn inta ay sugayaan codsigooda magangeliyo. el gobierno mexicano por lo tanto isbeddelka waa tallaabo ku meel gaar ah oo bani aadamnimo sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mexico. waxaa loo arkaa dal saddexaad oo ammaan ah. sidee bay ammaan u tahay? dhowaan 2 dhalinyaro oo Honduras u dhalatay kana mid ah soo galootiga ayaa lagu dilay wadooyinka Tijuana. waxaan soo aragnay Samuel, Arlina iyo cunugtooda Madalin oo inta badan safar ku jiray. sida qoysaska qaxootiga waxaa ka muuqatay saboolnimo, daal iyo inay ka baxsanayeen khatar dagaal. wax kasta ayay u soo mareen si ay halkan u soo gaaraan, mana doonayaan inay dib u laabtaan. balse hadda bilooyin haddiiba aysan sanooyin noqon, waxa ay joogayaan mid ka mid ah magaalooyinka ugu halista badan Mexico. dib uma laaban karno maxaa yeelay burcadda Honduras joogta ayaa dil inoogu hanjabtay. dhowr jeer ayay aniga guriga iga soo raadiyeen, waana ka soo cararay. toddobaadyo adag ayay wax kasta kaga soo baxeen. cuntadu way yar tahay, waxaana jira xaalad nadaafad darro. magaalada waxaa laga furay xeradii labaad ee soo galootiga, mana ku filna. boqolaal ayaa ku soo laabtay bartamaha Ameerika, waxayna mas'uuliyiinta Mexico ku dhiirigelinayaan inta kale inay sidaas sameeyaan oo ay ciidda masiixigu ku laabtaan dalkooda. waa go'aan in badan ka yaabiyey. sidee magangelyo u weydiisanaa dal una joogaysaa dal kale macno ma samaynayso. madaxweyne Trump wuu nacay habkii hore isagoo ku tilmaamay qaba oo daa. isbeddelka waa wax uu Mexico ka doonayo. inkastoo heshiiska cusub hadda la sameeyey, haddana kuwa ku xadhimay xuduudda way ku sii adag tahay. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. koox dable ah ayaa weerar ku qaaday wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya magaalada caasimadda ee Tripoli. warar dhinaca ammaanka ayaa sheegaya in ragga weerarka soo qaaday ay dhismaha gudaha u galeen, waxaana jirtay rasaas iyo qarax ka dhacay. 3 qof ugu yaraan ayaa lagu dilay, mana jirto cid sheegatay weerarkaasi. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ku marti qaaday Donald Trump inuu sanadka dambe soo booqdo si markaasi la iskugu dayo in ay iskala shaqeeyaan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya. aqalka cad waxay sheegeen in safarkaasi wali aan la qorsheyn. bal markan aynu eegno warbixinadii sanadkan ugu xiisaha badnaa ee aanu sii dayna waxaa ka mid ahaa xisbiga dimuqraadiga ah oo la wareegay aqlabiyadda aqalka wakiilada kadib doorashooyinkii xilligii dhexe ee Mareykanka. waxaa doorashooyinka ku soo baxay dumar badan. haweenkii guusha haleelana waxaa ka mid ahayd Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed. Caaisha Afrax oo ka qayb gashay xafladii guusheeda oo ka dhacday magaalada Minneapolis ayaa warbixintan xilligaasi ka soo dirtay. waxay u ahayd habeen xisbiga dimuqraadigu hantiyay guul ay u dabaaldegaan. guushan waxaa u horseeday musharaxiin ay haween horkacayaan. waa guul dabri doonta awoodda madaxweyne Donald Trump, waana habeen geli doona taariikhda Mareykanka. waxaa markii ugu horreysay aqalka wakiilada loo doortay gabar Soomaali ah, Ilhaan Cumar, oo noqon doonta xildhibaanada gobolka Minnesota. Ilhaan oo horey u ahayd qaxooti, waxay sidoo kale noqon doontaa gabadhii labaad ee muslimad ah ee aqalkan loo doorto. waxaa la midoobi doontaa Rashiida Taalib oo iyana isla xalay gobolka Michigan laga soo doortay. caawa tartankayga un ma aha, laakiin dalka oo dhan dadku midnimo ayay ka doorteen baqdin. midnimo ayay ka doorteen kala qaybsanaan. runtiina waa waqti ay Soomaalida oo ku jirta liiska muslimiinta oo dalka laga mamnuucay in loo doorto Soomaaliyad qaxooti ah Koongareeska. Minnesota farin cad ayay dirtay, waana fursad lagu farxo.
guushu ma ahayn mid ku sinayd iyada iyo qoyskeeda waxaa la wadaagay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota guud ahaanna dadka soo galootiga ah ee degan Mareykanka waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay maadaama Ilhaan ay soo gashay waa Ilhaan waa gabar Soomaali waaye waa gabar maxaa la dhahaayay cilmi leh waa gabar weyn waaye waa gabar maxaa la dhahaayay way ogtahay dibka haasto qof kasto Soomaali ah qof kasto refugee ah da'deedu way yahay waa run laakiin experience-geeda khibradeeda aad u badan tahay waxyaalahan hadda haysta oo dadka Minnesota jooga haystana oo waxyaalo ay iyadu u gaartay soo martay waxyaalo ay oo soo dareensan tahay oo shaqadeeda ay personal tahay xisbiga jamhuuriga ayaa weli gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka sare madaxweynuhu wuxuu si isdaba joog ah duulimaad ku marayay gobolada isagoo ka qayb galayay isku soo baxyo 30 gaarayay labadii bilood ee u dambeysay si kastaba ha ahaatee madaxweyne Trump wuxuu sheegtay guul weyn doorashooyinka dhexe ee Mareykanka ayaa waqti dheer la hadalhayay laakiin hadda waa ay soo afjarmeen musharaxiinta ayaa ku qaaday ballamo fara badan ololayaashoodii oo ay ka mid yihiin hagaajinta kaabayaasha caafimaadka iyo dhaqaalaha dadweynaha Mareykanka ayaana hadda sugaya in dhammaan ballamahaasi la oofiyo laakiin la wareega golaha wakiilada ee dimuqraadigu waxa ay ku noqon doonaan caqabad iyadoo hor istaagi karta dejinta sharciyada isla markaana carqaladeyn karta siyaasadiisa si kastaba ha ahaatee golayaasha wakiilada Mareykanka ayaa u qaybsan si la mid ah sida uu Mareykanku u qaybsan yahay Aisha Afrax BBC Minnesota warbixino kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda oo sanadkan aynu samaynay ee hanaga tagina weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn dowladda Indonesia ayaa BBC-da u sheegtay inay dhisayso xarun cusub oo digniin ka bixiso tsunami-da sanadka 2019 iyadoo tirada dadkii ku dhintay tsunami-da Sabtidii iminka ay gaartay 429 qof waxay u soo hayaameen riyo mustaqbal wanaagsan laakiin iminka kumanaan soo galootiga bartamaha Amerika ayaa maanta oo Christmas waxay ku qaadanayaan jidadka mid ka mid ah magaalooyinka ugu halista badan Mexico warbixinadii sanadka aynu sii daynayeen ku jirnay ugu yaraan 12 dhalinyaro Soomaali ah ayaa 12 bilood ee u dhaxaysay dhamaadkii sanadkii hore iyo sanadkan bilowgiisii waxa mindiyo loogu dilay magaalada London waa tiro aad looga naxo oo khalkhal ku abuurtay dadka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda wadankan Britain Maxamed Xaraare ayaa u kuur galay dhibaatadaasi warbixintan ayuuna ka diyaariyay bilowgii bishii August ee sanadkan waxa dhacday qadar baa ugu dhacday oo wiilkayga TC baa gashay maalin waxay talaada saddexdii galmo kor ka soo degtay waxaan wariyaa qadan kariya qadadan cun bariiska muun wati bix buu cunay ka bacdina waxaan dhiga uu firay aqalka uu farkii kor ka soo dejiyay irida markuu soo dhigay wuxuu yiri waxaan imanayaa 5 minutes iridu albaabku furay wax yar inuu isugu banaanka taagan oo mareynay waxaan maqlay gabar aan dhalay soo wacday wuxuu tiri Cabdullaahi Mindiya la galiyay dhacdadani kuma koobna hooyadan oo kaliya 12 bilood la soo dhaafay magaalada London waxa lagu dilay ugu yaraan 12 qofood oo Soomaali ah taasoo macnaheedu tahay in bishii tagtaaba uu qof Soomaali ahi mid uu dhimanayay aabahan oo naga codsaday inaan wajigiisa qarino waxa uu iga sheekeeyay sida wiilkiisa loo mindiyay oo markaa wuxuu lahaa imtixaanaadkii jaamacadda iyo wixii baa lagu jiray inuu library wax soo matqan aqriyo oo matqan gurubyo kale to isaga ay jaamacadda dhigtaan iyo wixii ay wada sameeyaan hawl wada qabtaan bay ahayd nasiib darro waxaa dhacday in matqan lagu weeraray isku station sii galay taasi uu ka soo cararay soo ka cararay dhawarka mid laga dhuftay markii horeeto suubu ogeyn wajiga ay kaga dhacday kabay ka cararay wiilkiisu wuu ka bogsooday dhaawacyo ka soo gaaray dhabarka iyo wajiga hayeeshee nabadgelyadiisa darteed dalkan waa laga dhoofiyey sida lagu xaqiijiyey macluumaaduu booliska London dhawaantan daabacay 4 bilood ee ugu horreysay sanadkan waxaa la dilay 5 qof oo Soomaali ah kuwaas oo ay da'doodu u dhaxaysay 17 ilaa 36 sano
cabdulaahi 5 wiil buu la dhashay isagoo yaraan buu ahaa yaraanka wiilasha buu ahaa ani dhinacayga wuxuu ka ahaa baby sariirtu xataa ila seexan jiray cabdulaahi wiil yar ahaa wallaahi subaxii waxaan shaqan tegi jiray keer sidii kalooga bixi jiray markaan baxo sariirteedu tegi jiray markaan 10:30 caano iyo rooti soo gado waa loo soo lugeeyaa gurigeena xoogaa yar buur yar gurigeyga ilaa ay Iceland xoogaa la soo lugeyn jiray timekaas ugu hor imaan jiray isagoo ordaayo caanaha iyo alxamdulilah rabbil caalamiin isagoo soo ordayo iga qaadayo alaabtii inkastoo ay dembiyada mindiyuhu guud ahaan sii kordheen dalkan haddana qaar ka mida dadka Soomaaliyeed ayaa sheegaya in iyaga si gaar ah loo bartilmaameedsado laba dhinac waay dhinac horta waxaa jirto ka dhacday Leyton ciyaal Soomaali ah oo ka imaaday xaafadda Leyton ciyaal madow oo Leyton ka imaaday dagaal jireen soo marka dagaalkii waa sii batay adii sanadooyin wuxuu socday laakiin heer waxay gaareen oo cunug oo iska socdo oo Soomaali ahaan wax oo asugu darsaday dagaalkaas iyo gang dhanku ma jiro Soomaalinimo loo geliimay laakiin dhinaca kalena waxaa jirto xaafadan Wood Green Tampark Lane ciyaal madow ee la dagaalanto Tottenham soo marka sidii ay iska aarsanayeen ayagana marka Soomaali ahaan si loo geliyaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed ayaa carruurtooda ula soo cararay dalkan si ay uga helaan amni iyo mustaqbal laakiin qaar ka mid ah waxa ay la darseen dhacdooyin naxdin leh carruurtii hore looga soo qixiyay colaadaha ayaa hadda lagu fakarayaa in dib loo qixiyo maxamed xaraare BBC London waxa kale oo warbixinada sanadkan aanu sii deynay kamid ahaa barnaamijyada mobilada oo tagaasida markaasi lagu dalbado mid haweenka u gaar ah ayaa la sameeyay nisa oo barnaamijka haweenka oo kaliya ay ku dalban karaan tagaasida sidoo kale darawalada oo dhan waa haween ka shaqeeya barnaamijkana waxa uu siiyay hab ay gaadiidka ay ku safraan haweenka ay ku qanacsanaan yihiin tagaasida raggu wado maadaama aysan arrimo diimeed iyo mid ammaanba ku qanacsanayn Suhayba Maxamed Badqas ayaa ka waramaysa falalka xiriirka ee naxdinta leh ee ay la kulmeen iyo dhibaatada ay qaar ka mid ah darawaliintu u geystaan haweenka ayaa ah waxa ku dhiirigeliyay Mehnaar Sarwar in ay bilowdo ganacsigan waxay hadda bilowday ab la yiraahdo An-Nisaa taa oo macnaheedu yahay haween waa taksi ku shaqeeya online-ka oo haween kaliya ay darawal ka yihiin dumar kaliya ayayna qaadaan waxaan ragga u haynaa fursado badan waxay ku shaqeysan karaan Uber iyo Taxify dadka ugu badan ee badbaadinta u baahan waa dumarka marka waxaan isku dayeynaa in dumarkaan u fidino adeeg u gaar ah oo ay u baahan yihiin ma ahan inaan dadka kala soocayno ee waa tayada dumarka oo sare loo qaadayo iyo in dumarka ay lahaadaan meel iyaga u gooni ah maadaama ay wixiiba iska noqdeen wax ragga uu badan yahay magaalada Nairobi waxa lagu qiyaasaa in ay ka howlgalaan in ka badan 10,000 oo tagaasi ah kuwaas oo celcelis ahaan midkiiba maalintii gala 4 safar sida lagu sheegay xog rasmi ah taa oo qiimaha ganacsiga tagaasida magaalada ku qiyaastay in maalintiiba laga soo xareeyo $200,000 dad badan ayaa ku shaqeysta tagaasida dalkan inta badanna darawal waxa ka ah rag halkan aan ku suganahay ugu yaraan 10 tagaasi ayaa taala mana jirto qof dumar ah oo iyagu kaxeeya tagaasida inkastoo inta badan tagaasida ay rag wadaan ay yihiin kuwa ammaan ah oo la raaci karo haddana dumar badan ayaa waxa ay dareemayaan in tagaasida ay dumarku wadaan ay ka qatar yar yihiin kuwa kale abkan cusub ee tagaasida ee An-Nisaa ayaa durbaba noqday mid laga hadal haya magaaladan oo ay jeclaadeen haweenka Nairobi kalsooni aad ah ayaan dareemaa qofka darawalka ah marka ay tahay dumar waxaad dareemaysaa ammaan waxaad dareemaysaa badqab dumarka darawalada ahna waa kuwa taxadar badan marka ay gaariga wadaan marka ay arrimaha afduubka iyo xadgudubyada ay yimaadaan waxaad dareemaysaa marka uu qof dumara codsiga ka yimaado kalsooni
adeega abka taga sida annisaa ee haweenka oo kaliya loogu talagalay ayaa waxa uu bixiyaa adeegyo la mid ah kuwa laga bixiya caalamka sida kuwa London Lady Shovers, Pink Ladies, Driver. dhammaan shirkadahaasi oo dhan waxa ay ku suuq galeen inay wax ka qabanayaan ammaanka iyo dhibaatooyinka ay darawaliinta caadiga ah u geystaan haweenka rakaabka ah. Suhayba Badqas, BBC, Nairobi. balmarkana dhinaca iyo Finland sanad kasta 70,000 oo qof ayaa booqda dabaaldega loogu magac daray World Village ee Helsinki ka dhaca waa munaasabad lagu xuso dhaqamada kala duwan ee dunida. sanadkana Shukri Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed ayaa ka mid ahay dadkii soo qaban qaabiyay warbixin ayaanu ka sameynay 10kii bishii Agoosto ee sanadkan. magacay waa Shukri waxaa ku dhashtay Finland Helsinki gaar ahaan waxaana bartaa jaamacadda arrimaha bulshada waxaana ka shaqeeyaa urur la dhaho Money Heli RU waxaana ku shaqeeyaa warbixinta iyo warfaafinta iyo dhinaca wax soo saarinta maanta waxaan soo bandhigay aniga qolo kale bandhigan saan u weyn gaar ahaan tendada oo Money Nanisomi aan soo qaban qaabiyay aad iyo aad ugu faraxsanahay hool weyn oo soo marnay 4 bilaa u shaqeynay intaano dad inuu soo dhigo meel oo isku imaan karaan oo waqti si qaadan karaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ina ka ahay mid ku soo qaban qaabinayay beema sheegay hool weyn ee laakiin alxamdulillah waan wili waan si wadnaana waan ku faraxsanahay waxaa inta ka soo qayb galaan ugu yaraan sanadka hore waxaa ka soo qayb galaan 70,000 sanadkan ma ogna wili laakiin hadda inta u jeedno waxa ognahay in sanadka hore ka badan ay imaadeen laakiin insha Allah waan arki doonaa aad iyo aad u faraxsanahay in aan soo qaban qaabiyo bandhigan oo isdhexgalka bulshada lagu talgalay maanta waxaan ku faraxsanahay inaan arkay inta soo dhaqamoon oo isku imaaday hal meel wada sheeko ka dhacay waqti la sala qaatay aad ugu faraxsanahay maanta waxaan shaqada soo galay 2 saac subaxnimo ilaa hadda waan joogaa ilaa caawan waa sii wadaa bandhigan dad badan soo jiitay inta hadda maqladan waxa wax positive leh waay inta shaqeynaydan waxa aad iyo aad iga farxiyay waxay ahayd in dad kasta igu dhahaan shaqo fiican aan qabatay aad ugu faraxsanahay bandhigan aan soo dhigtay hadda amal tusaalahaan oo da'weyna ay imaatay igu dhahday aad iyo aad ugu faraxsanahay in adoo kale ama dad adoo kale waxaan amal qabsan karaan ما شاء الله gabadheed maanta waxay qabatay aad ugu faraxsanahay ما شاء الله إلهي وبركاته آمين هوي إن شاء الله gaari waxartid ugu dambeyntiina waxaanu idin haynaa orodyahanada ugu geesisan dunida waa tartanka sanadlaha ee marathonka Antarctica ka dhaca 57 orodyahan ayaa ka qayb galay 42 kilomitir tartankaasi iyadoo qabowga uu ka hooseeyo 20 darajada Celsius ka yiraahdo in la galo tartankan orodka qabowga badan ee adduunka waxaa ku kacay $17,000 Piotr Sachunia oo Poland u dhashay ayaana ku guuleystay waxaana uu ordayay muddo 4 saacadood qabowgaasi dhexdiisa xasuusnahu wararka ugu waaweyn ee BBC Somali waxaad mar walba kala socon kartaa bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii caawiya caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan